kulanti wacan daawadayaal waa xaaji mubaarago mar kale idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaynu kaga hadlaynaa warbixin lagu cabirayo siday Afrika iskaga caabiyi karto haddii xanuunkani u gudbo oo si weyn u dhex qaado. warbixinta waxaa magac looga dhigay oxygenta Yurub iyo saabuunta Afrika. waxaa lagu bilaabay warbixinta lama aqbali karo siyaasadaha lagaga xadidayo neefsikaabayaasha ama waxa loo yaqaano ventilatorska malaayiin iyo balaayiin dadweynaha caalamka ah. imise jeer ayaynu maalintii maqalnaa in coronavirus uu yahay safmareen kaas oo madaxda caalamka iyo wadayaasha basaska si isku mid ah u haleelaya. miyay tahay in aynu ka fikirno ama aynu xaqiijino in fayraska dilaaga ahi uu yahay mid midayn kara bani aadamka guud ahaantii oo aynu kaga gudbi karno cadaalad darrada iyo sinaan la'aanta bulshooyinka ee sii kordhaysa. qofku in uu si iskiiyo isku xayndaabo ama uu isku go'doomiyo ikhtiyaar uma aha bulshooyinka nugul sida qaxoontiga ama kuwa hoy la'aanta ah. bulshooyinka qaarna waxay si cad ugu nugul yihiin cudurka. tusaale ahaan gobolka Mareykanka ee Louisiana boqolkiiba 70 dhimashada COVID-19 waa dad madow ah oo Mareykan ah. si kastaba ha ahaatee isbedelada ballaadhan ee caalamka ayaa wajahaya xaalado kala duwan. sida wadamada dakhligoodu sareeyo oxygenta waxaa looga qaataa si quman waxayna ku dhajisan yihiin gidaarada qolaalka isbitaalada iyada oo la adeegsanayo nidaamyo tuumbooyin oo casri ah. laakiinse dadku ma wada dhargin sidaasna ma wada aha bal aynu eegno in badan oo liidata. deegaanka Qasa waxa ay leedahay 20 neefsikaabe ama ventilators oo kaliya oo loogu talagalay 2 milyan oo qof. jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxa ay leedahay 3 neefsikaabe ama ventilators oo kaliya waana dal ay ku dhaqan yihiin in ka badan 5 milyan oo qof. Burkina Faso waxay u haysaa muwaadiniinteeda oo dhan 20 milyan 12 sariirood oo kaliya oo daryeelka degdega ah. waxa aynu rajayn karnaa aqlabiyadda dalalkani in ay yihiin da'yar ah oo young generation waxa loo yaqaano. taasina ay yareynayso saameynta cudurka COVID-19. laakiin qaar badan oo ka mid ah bulshooyinkan dunida saddexaad ayaa horeba ula noolaa cudurrada qaaxada, HIV/AIDSka, jadeecada ama duumada iyo cudurro badan oo aan la kala qaadin. haddii uu haleelo COVID-19 waxa ay noqon kartaa masiibo weyn waxaanu ka geysan karaa xasuuq wadareed. bulshooyinkan boqolkiiba 80 uma baahan doonaan isbitaallo laakiin boqolkiiba 20 ayuunba u baahan kara halka rubuc ka mid ahi ay u baahnaan doonaan neefsikaabis ama oxygen in lagu xidho. kuwa aan haysan daryeelka oxygenta ama neefsikaabista dhimashadu waxay noqon kartaa wax qiyaasaha aynu hayno ka fog. COVID-19 si dhaqso leh ayuu u fidayaa. fayraska waxaa la isku qaadsiin karaa waqtiga u dhaxaysa qaadista iyo dhamaadka. yacni qofku wuxuu fayraska gudbin karaa muddada u dhaxaysa marka uu qaado fayraska iyo marka uu ka dhamaado ama uu ka bogsado ama uu u godgalo. dhimashada badanaa waxa ay dhacdaa wax ka yar 1 bil. qofku markuu fayraska qaado muddo bil gudaheeda ama uu ka bogsanaya ama uu dhimanaya. caqabadaha aan hore loo arag ee COVID-19 ee wadamada hodanka ah waxay u muuqataa mid aan lagula tacaali karin goobaha kheyraadkoodu liito iyo kaabayaashooda caafimaad sida dunida saddexaad. waa tahay daawadayaal markan haddii aynu si guud u eegno warbixinihii ugu dambeeyay ee tirooyinka caabuqa ee COVID-19 Mareykanka ilaa hadda hogaaminaya waxaana maraysaa tiradiisu inta laga xaqiijiyay 746 qof halka 660,676 ay ka bogsadeen 39,158 ay u dhinteen. Isbaanishka ku xiga 195,000 ayuu ku dhacay 944 77357 qofna way ka bogsadeen
20,630 qofna way u dhinteen. Talyaaniga kaalinta saddexaad ku jira 175,000 oo qof ayuu haleelay 925 44,927 way ka bogsadeen 23,227 way u dhinteen. Jarmal baa kaalinta afraad ku jira ilaa hadda kaalinta afraad isaga muddo ku jiray 144,124 qof ayaa laga xaqiijiyay laga helay 80,584 way ka bogsadeen 4,548 way u dhinteen. dhimashadiisu aad bay isaga u yartahay marka loo eego nambarka uu haleelay xanuunku. Ingiriiska kaalinta shanaad ku jira 120,000 ayaa laga xaqiijiyay 67 recovery halkan ma sheegayso laakiin Ingiriiska way jirtaa recovery cid ka bogsatay 16,060 qofna way u dhinteen. Francisco waxa laga xaqiijiyay isaga 111,820 waxa ka bogsaday 35,983 waxa u dhintay 19,323. kaalinta toddobaad waxa ku jira China 82,735 qof ayaa laga xaqiijiyay waa sidoo Chinuhu sheegayo walow China statisticskiisa aan la isku halaynin 7,000 way ka bogsadeen 4,630 way u dhinteen. Turkiga markaa kaalinta sideedaad ku jira 82,329 ayaa isagana laga soo xaqiijiyay 10,453 way ka bogsadeen 1,890 baa u dhintay Turkiga gudihiisa. Iiraan baa markaa kaalinta sagaalaad ku jirta Iiraan 82,212 baa iyadana laga xaqiijiyay 750,023 baa ka bogsaday halka ay sheegtay 5,118 inay kaga dhinteen. Russia kaalintii tobnaad soo xidhiidhsaday oo isagu iska maarnaya muddaba 42,853 ayaa laga xaqiijiyay Russia 3,219 way ka bogsadeen 360 kaliya ayaa ku dhintay sidoo jeenayna. Si guud haddii aynu u jaleecno nambarka guud ee caalamka 2,347,875 baa laga xaqiijiyay waxa ka bogsaday 604,312 ayaa ka bogsaday waxa u dhintay 160,402 inta aynu ku soo gabagabeynaa maanta barnaamijkeennii tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.